shirkan wadatashiga xeer nidaamyaha adeegyada biyaha dalka oo soo qabanqaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradaha tamarta dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir waxaana diiradda lagu saaray sidii guud ahaan dalka loo gaarsiin lahaa biyo nadiif ah. Cabdirasaaq Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirka furay ayaa soo dhaweeyay dhammaan martida ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. waxaa la rabaa inaad waqtigiina si fiican u gelisiin oo si fiican isku dhageysatiin wixii xog oo lagu daray ama wixii laga bedelaaya inaka xaqiina inay ka timaadaan rabaa ilaa sharciyan anaga una askale qof kale oo dibadda uga iimaanay oo lahan kara ama hadhow dam implement karan doona ma jira soo sida la ajriga waxaan rabaa waqtigiina inaad siisiin telefoonyaha silent ka dhigatiin aad dhageysatiin sifo wax tayo leh meesha uga soo bax insha Allah ta'ala markan haddana meetingku uu noo furan yahay. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Hirshabeelle Yuusuf Cabdi Faarax oo ku hadlay afka agaasimayaasha guud ee wasaaradda tamarta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa uga mahadceliyay wasaaradda dadaalka ay ugu jirto la shaqeynta dowlad goboleedyada dalka. xaqiiqda waa dareemi kartaan waxaan ka shaqeynayna waa humanitarian waa arrimaha bulshada gaar ahaan haddana waxaan ka shaqeynayna waa biyahan markaa fiirsaan waa aad ay u dhibadiyeen sababtoo ah qof walba oo nool ayaa u baahan marka waxay u baahan yihiin in dhaqaaq badan loo sameeyo waxay u baahan yihiin biyaha la tayeeyo waxay u baahan yihiin marka in sida saan camal sida wasaaradda biyaha iyo tamarta ay sameynayso tashiyo badan laga sameeyo sida lagu heli lahaa biyo nadiif lagu heli lahaa insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay raado annagana marka ka maamul goboleedyo ahaan waxaan sameyn doonaa hadduu Ilaahay raado wixii karaankeena ah oo ku aadan qaabkii loo tayeeyo lahaa biyaha waxaan isku dayi doonaa marka sida maanta halkan ka muuqataba inaan la shaqeyno wasaaradda heer federaal inaan la shaqeyno si walba markaas lagu tayeyn karo biyaha lagu tayeyn karo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Cabdullaahi Dr. Go oo soo xiray shirka ayaa dhammaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ku amaanay dadaalada ay ugu jiraan sidii biyo nadiif ah loo gaarsiin lahaa deegaanada ay ka howlgalaan maadaama private company wadanku uu noqon doono sharcigi triple P ay dhahayeen la ansixin doono oo public private partnership sharciga la ansixin doono adduunkuna badanaa uu soo wareegay in private wax kasta laga dhigo shuruucdii ama lagu hagaajin lahayo maxaa la yiraahdaa qaabkii la soo shaqeyn lahay dawladda iyo private sectorska iyo qaabkii soo shaqeyn shuruucda lagu hagaajinayo horta inaan bilowno ama inaan socodsiino waa wax muhiim ah sababtoo ah saa la socotaan wadankeena waxdan waxay lahaan jirtay dowladda dhexe lahaan jirtay marka wuxuu iska central laakiin hadda maadaama adduunku isbedelay annagana adduunkaas un baan qayb ka nahay waa laga maarmaan marka in private sectorska xoog la saaro. Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.